xafladan oo ay soo qaban qaabisay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Talyaaniga ayaa waxaa kala soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo booqasho rasmi ah ku jooga wadankan Talyaaniga. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo munaasabadani khudbad dheer ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay dadka qurbo joogta ay dalkooda dib u dhistaan isla markaasna ay ka qayb qaataan howlaha ka socda wadanka Soomaaliya. madaxweynaha ayaa waxa uu dadka sharaxaad ugu bixiyay barnaamijka isxilqaan ay dawladda Soomaaliya soo kordhisay isla markaasna lagu dhisayo goobo badan oo burbursan oo ay lahayd dawladda Soomaaliya. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu faahfaahin ka bixiyay xaaladda Geeska Afrika iyo waliba horumarka hadda ka socda Geeska Afrika ay hormuud ka tahay dawladda Soomaaliyeed. annagu doorashadii aan doorateen ummadda Soomaaliyeed waxaan doonaynaa jid cusub inaan u falno wixii shalay aan naqaanay oo siyaasadda ku naqaanayna inaan wax ka baranno oo aynan dibna ugu noqon wixii lagu fashilmay oo aan jid cusub aan qaadno. waxaan rabaa inaan idiin sheego safarkayga halkan aan ku imid oo aan dawladdan Talyaaniga ah aan saaxiibka nahay aan uga helay martiqaadka inaan soo celino xiriirkii taariikhiga ahaa oo labada dal ay lahaayeen. waxaan la kulmay madaxweynahooda, waxaan la kulmay prime ministerkooda, insha Allah waxaan la kulmi doonaa baarlamaankooda, madaxda baarlamaankooda hadduu la yiraahdo. waxaana ka go'an inay Soomaaliya xiriirkeedii ay la lahaan jireen ay soo celiyaan. Soomaaliya inay dib u istaagto cageed ugu istaagto aan kala faa'iideysano. waxay ballan qaadeen waxbarashadii iyo cultural relationship-keennii waxbarashada ay inay soo celiyaan. waxaan ka wada hadalnay sidii maalgashi loogu sameyn lahaa Soomaaliya dhanka hadday noqoto kalluumaysiga, hadday noqoto beeraha, iyo sidii ugu soo jeedi lahaay Yurubiyaanka kale ganacsatadooda Soomaaliya inay maalgashadaan. waxayna aad ugu farxeen, aad ugu faraxsan yihiin, soo dhaweeyeen Horn of Africa inuusan mar dambe ka jirin wax colaad ah, in dawladaha Horn of Africa ay leeyihiin wada shaqeyn iyo ixtiraam. maxaa yeelay waxay ka fiirinayaan Horn of Africa marka la fiiriyo waa strategic area way, waa strategic macnaha meel wanaagsan ee adduunka ayaan kaga nalaa. marka la arko regionkan inuu yahay region nabad ah, cid walba yaa maal gashanaysa. marka aad iyo aad ay u soo dhaweeyeen xiriirka cusub oo wanaagsan aan la leenahay Ethiopia iyo xiriirka wanaagsan aan la leenahay Eritrea iyo Djibouti iyo Kenya iyo dawladaha kale oo Geeska Afrika degan. waxayna ka arkaan fursad weyn ayay ka arkaan. maxaa yeelay awal waxay ahayd dawlado hub isku aruursada oo mar walba mid ka liita la sii dhibaateeyo. laakiin hadda qaabka hadda Horn of Africa aan u shaqeynayno waxay tahay inaan is ixtiraamno, inaan is qadarino qarannimada dawlad walba iyo dal walba in la ilaaliyo oo aanan la isfargelin. arrintaas runtii waa soo dhaweeyeen, iyaga kaliya maaha, European Union ka soo dhaweeyay, Mareykanka soo dhaweeyay, Afrikada kalena waa soo dhaweysay. sidaas weeye wax kaliya aan kula tartami karno caalamka intiisa kale. annagana sidaas ay tan noogu jirtaa hadda Soomaaliya. marka aan ku celiyo dan waxay noogu jirtaa iyadoo la is ixtiraamayo oo aan is faragelin oo dawlad walba qarannimadeeda ay haysato iyo sovereignty-geeda ay haysato. waxa kaliya aan wadaageen ay tahay dhanka ganacsiga aan soo fureyno ay tahay. taasna annaga ay dan noogu jirtaa, Soomaaliya dan noogu jirtaa, annagana ka faa'iideysanayna insha Allah sida ay noo baraan iyaga naftigooda. ilaa dawladaha dariska ah Kenya iyo ciidamada noo soo tababareen hadda ka hor, Ethiopia ciidamo badan noo soo tababareen hadda ka hor, Uganda ciidamada noo soo tababareen. hadda annaga waxaan u tababareynaa sida loo ganacsado. maxaa yeelay annaga uga horeyna wadamadaas oo dhan. waxa kaliya Soomaaliya ay leedahay ay ku faani karto oo ka badbaaday waa ganacsatada way. marka inaan u furno albaab cusub si ay dhaqaale badan uga sameeyaan yaa diidi kara taas? yaa ka hadlaya? waxa ka hadlaya oo kaliya qofka aan rabin Soomaaliya inay horumar gaarto. taasna ka yeeli mayno. anna mas'uuliyadda waxaan qaaday inaan qarannimada Soomaaliya ilaaliyo oo aan u dhaartay. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sidoo kale maanta waxa uu kulan la qaatay
gudoomiyaha aqalka sare ee wadankani Maria Salabeta ayagoona ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya iyo waliba xiriirka soo jireenka ee ka dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo waliba dawladda Talyaaniga ayadoona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo si weyn loogu soo dhaweeyay xarunta baarlamaanka aqalka sare ee wadankan Talyaaniga xafladan oo ay soo qaban qaabisay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Talyaaniga ayaa waxaa kala soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo booqasho rasmi ah ku jooga wadankan Talyaaniga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo munaasabadani khudbad dheer ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay dadka qurbo joogta ay dalkooda dib u dhistaan isla markaasna ay ka qayb qaataan howlaha ka socda wadanka Soomaaliya madaxweynaha ayaa waxa uu dadka sharaxaad ugu bixiyay barnaamijka isxilqaan ay dawladda Soomaaliya soo kordhisay isla markaasna lagu dhisayo goobo badan oo burbursan oo ay lahayd dawladda Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu faahfaahin ka bixiyay xaaladda geeska Afrika iyo waliba horumarka hadda ka socda geeska Afrika ay hormuud ka tahay dawladda Soomaaliyeed annagu doorashadii aad doorateen ummadda Soomaaliyeed waxaan doonaynaa jid cusub inaan u falno wixii shalay aan dhaqaanay oo siyaasadda ku dhaqaanayna inaan wax ka baranno oo aynan dibna ugu noqon wixii lagu fashilmay oo aan jid cusub aan qaadno waxaan rabaa inaan idin sheego safarkayga halkan aan ku imid oo aan dawladdan Talyaaniga ah aan saaxiibka nahay aan uga helay martiqaadka inaan soo celino xiriirkii taariikhiga ahaa oo labada dal ay lahaayeen waxaan la kulmay madaxweynahooda waxaan la kulmay prime ministerkooda insha Allah waxaan la kulmi doonaa baarlamaankooda madaxda baarlamaankooda hadduu la yiraahdo waxaana ka go'an inay Soomaaliya xiriirkeedii ay la lahaan jireen ay soo celiyaan Soomaaliya inay dib u istaagto cageed ugu istaagto aan kala faa'iideysano waxay ballan qaadeen waxbarashadii iyo cultural relationship-keennii waxbarashada inay soo celiyaan waxaan ka wada hadalnay sidii maalgashi loogu samayn lahaa Soomaaliya dhanka hadday noqoto kalluumaysiga hadday noqoto beeraha iyo sidii ugu soo jeedi lahay European-ka kale ganacsatadooda Soomaaliya inay maalgashadaan waxayna aad ugu farxeen aad ugu faraxsan yihiin soo dhaweeyeen Horn of Africa inuusan mar dambe ka jirin wax colaad ah in dawladaha Horn of Africa ay leeyihiin wada shaqayn iyo ixtiraam maxaa yeelay waxay ka fiirinayaan Horn of Africa marka la fiiriyo waa strategic area way waa strategic macnaha meel wanaagsan ee dunka ayaan kaga nalaa marka la arko regionkan inuu yahay region nabad ah cid walba yaa maal gashanaysa marka aad iyo aad ay u soo dhaweeyeen xiriirka cusub oo wanaagsan aan la leenahay Ethiopia iyo xiriirka wanaagsan aan la leenahay Eritrea iyo Djibouti iyo Kenya iyo dawladaha kale oo geeska Afrika degan waxayna ka arkaan fursad weyn ayay ka arkaan maxaa yeelay awal waxay ahayd dawlado hub isku aruursada oo mar walba mid ka liita la sii dhibaateeyo laakiin hadda qaabka hadda Horn of Africa aan u shaqeynayno waxay tahay inaan is ixtiraamno inaan is qadarino qaranimada dawlad walba iyo dal walba in la ilaaliyo oo aanan la isfargelin arintaas runtii waa soo dhaweeyeen iyaga kaliya maaha European Union ka soo dhaweeyay Mareykanka soo dhaweeyay Afrika kalena waa soo dhaweysay sidaas weeye waxa kaliya aan kula tartami karno caalamka intiisa kale annagana sidaas ay tan noogu jirtaa Soomaaliya marka aan ku celiyo dan waxay noogu jirtaa iyadoo la is ixtiraamayo oo aan isfaragelin oo dawlad walba qarannimadeeda ay haysato iyo sovereignty-geeda ay haysato waxa kaliya aan wadaageen ay tahay dhanka ganacsiga aan soo fureyno ay tahay taasna annaga ay dan noogu jirtaa Soomaaliya dan noogu jirtaa annagana ka faa'iideysanayna insha Allah sida ay noo baraan iyaga naftigooda ilaa dawladaha dariska ah Kenya iyo ciidamada noo soo tababareen hadda ka hor Ethiopia ciidamada badan noo soo tababareen hadda ka hor Uganda ciidamada noo soo tababareen hadda annaga waxaan u tababareynaa sida loo ganacsado maxaa yeelay annaga ugu horeyna wadamadaas oo dhan waxa kaliya Soomaaliya ay leedahay ay ku faani karto oo ka badbaaday waa ganacsatada waa marka inaan u furno albaab cusub si ay dhaqaale badan uga sameeyaan yaa diidi kara taas
yaa ka hadlaya waxaa ka hadlaya oo kaliya qofka aan rabin Soomaaliya inay horumar gaarto taasna ka yeeli mayno anna mas'uuliyadda waxaan qaaday inaan qarnimada Soomaaliya ilaaliyo oo aan u dhaartay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sidoo kale maanta waxa uu kulan la qaatay gudoomiyaha aqalka sare ee wadankani Maria Salabeta ayagoona ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya iyo waliba